السلام عليكم. فيدرال waa maxay micnaha ereyga federaal? mar walba dhagaheena waxaa ku soo dhaca xilli walbana aan maqalnaa ereyga federaal ka oo dadka intiisa badan aan fikrad fiican weli ka haysan. ma isweydiinaysaa habka uu u shaqeeyo nidaamka federaalka intuu ka soo jeeda micno ahaan? waa maxay faa'iidooyinkiisa? caqabado miyuu leeyahay? yaa horay u isticmaalay? intaa iyo in kaleba waxaad jawaabahooda heli doontaa daqiiqadaha soo socda. ku soo dhawaada mowduuceena. inta aanan u gudagelin mowduuceena, fadlan hubi inaad nagu soo biirto adigoo riixaya batanka guduudan ee subscribe. Federalism asalkiisu waa erey Laatiin ah, waana Fodius, ka oo micnihiisu yahay heshiis ama ahdi. qeexidda federaal waa hab ka mid ah hababka dawliga ah ka oo awoodda u qaybinaya dowladda dhexe iyo maamulada hoose ee ka midka ah. inta badan dowladda dhexe ayaa leh awoodda badan, maamulada ayaa iyana leh awoodo gaar ah, waxaana jiri kara awood ay wadaagaan labada dhinac. markii ugu horeysay waxaa laga hirgeliyey waddanka Mareykanka qarnigii 17aad. waxaa kale oo la sheegaa in Yurub laga isticmaalayay ka hor Mareykanka intuusan ku dhawaaqin qaadashada nidaamka federaalka ah. federaalku waxaa loo qaybiyaa ilaa 3 nooc: kuwa la tijaabiyey iyo kuwa aan la tijaabinba. dual federalism waa nooc federaalka ka mid ah oo ay isticmaalaan dowlado dhowr ah oo dunida ka mid ah. habkan waxaa awoodda inta badan leh dowladda dhexe. arrimaha dibadda, lacagta, jinsiyadaha iyo difaaca waxa ayaheeda ka taliya dowladda dhexe. waxbarashada iyo horumarinta bulshada waxaa mas'uul ka ah maamul goboleedyada. systemkan ama habkan waxaa hadda isticmaala dowladda Mareykanka. cooperative federalism habkan waa nooc kale oo aan dunida laga isticmaalin, waayo awoodaha waxa uu ka dhigayaa mid ay ka siman yihiin dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada, taa oo sababi karta khilaafyo aan xal looga gaarin. creative federalism waa hab kale oo federaal ah ka oo awood xoogan siinaya aqalka sare ee odayaasha baarlamaanka. in ku dhow 30 waddan oo caalamka ka mid ah ayaa qaatay nidaamka federaalka ah. Mareykanka, Jarmalka, Brazil, India, Argentina iyo Australia waa dalalka ugu caansan ee federaal ah, kuwa oo horumaro iyo deganaan siyaasadeed ku gaaray iyaga oo isticmaalaya nidaamka federaaleynta. Nigeria iyo Ethiopia waa dalalka ugu waaweyn oo Afrikaanka ah ee hirgeliyay nidaamkan. haddaba waxaa jira faa'iidooyin iyo caqabado laga diiwaangeliyey wadamada isticmaalay nidaamkan. haddii aan ku hormaro faa'iidooyinka uu leeyahay federaalka, faa'iidada ugu weyn ee federaalka waa qaybinta awoodda si aan takrifal u dhicin, una sahlanaato in dowladda iyo go'aamadeedu u noqdaan kuwa shacabka u dhow. qaybinta awoodda waa in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu qaybsadaan awoodda maamul ee dalka. waxaa kale oo faa'iidooyinka federaalka ka mid ah in dowladuhu ku tartamaan bixinta adeegyada aasaasiga ah, horumarinta deegaanka, dheelitirka awoodda, baahinta xukunka, isla xisaabtanka iyo dejinta qorshayaal horumarineed oo shacabku cod ku yeeshaan. caqabadaha federaalka: nidaam kasta oo dadku degsado waxaa dhankiisa kala wataa caqabado, waxaase muhiim ah in la isbarbar dhigo faa'iidada nidaamka laga dhaxlay iyo caqabadaha uu wato. caqabadaha federaalka waxaa ka mid ah in awoodaha dowladda isku noqnoqdaan, sharciyo badan oo iska soo horjeeda oo la soo saaro, dib u dhac ku yimaada dejinta xeerarka muhiimka ah, dowlad waliba in ay leedahay gole fulin, baarlamaan iyo maxkamado u gaar ah, iyo shaqaalaha oo farabata, taas oo kalifta in la bixin waayo mushaaraadka iyo adeegyada muhiimka ah. haddaba 2004 waxaa lagu heshiiyey in Soomaaliya qaadato nidaam federaal ah ka oo aan ku iman codaynta shacabka. fiidiyogan kadib waxaan jeclahay xoogaa yar oo fikrad ah inaad ka heshay nidaamka federaalka ah. intaas ayaan jeclahay inaan ku ekeeyo mowduuceena. assalaamu calaykum.